orodka loogu jiro kursiga fiila Soomaaliya ayaa hadalhaynta ugu badan ee dhinacyada siyaasadda Soomaalida. Koox kasta ayaa dhankeeda dhigaysa dhagaro siyaasadeed si ay guusha u qaadato. Daminada la maleegayo ayaa kuwa kale looga gudbayaa. Saaxiibo ayay danuhu kala kaxaynayaan. Kuwa aan isjeclayn ayaa isku soo dhawaada. Rag fursadaha ka faa'iideysan waaya ayaa fagaarayaasha ka maqnaan doona. Wareeg dheer oo 3 qaybood laga soo gudbay ayaynu soo daawanay. Casharada ku jira isbeddelka maalinta iyo habeenka ayaa ina baraya inaynu dib u eegno mid ka mid ah siyaasiyiinta aan sadarrada qarsooni qarin karin. Waa Siciid Deni iyo siyaasaddiisa kala guurka oo aan cidna saamaxaad u samaynin, marna aan ka siibanin sallaanka isroga ee sahanka fiila Soomaaliya ay dhinacyada badani ugu jiraan. Siciid Deni waxaa loo diiwaangeliyey siyaasiga sita magaca iyo maamuuska dantiyaqaan, rabitaankiisa shakhsiyadeed, hoggaamintiisa maamul, hilaadintiisa siyaasadda iyo helista saaxiibo lajaal ah ayaa uga dhigan siyaasi aysan akhriyi karin kuwa necab iyo kuwa jecelba. 3 xaalo iyo xeeladood oo uu sameeyey ayaa qolo kastaaba gaar u tirsataa in uu iyaga la jiray, balse wax kasta waxa ay caddaadeen kolkii uu Baydhabo ugu quusgooyey midowgii musharaxiinta saaxiibadiisii uu mar badbaado kula ballamay December 2021 uuna iska diiday dhismaha gole qaran oo talada dalka la wareega kadib daahitaanka doorashada dadban ee socota. 19 bishii Maarch ee sanadkan ayuu mar kale laabqaboojin siyaasadeed isla dhinacyo kala duwan u sameeyey, waana inuu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimada. Hadafka ama yoolkana ka dhigtay in farmaajo laga guulaysto, taas oo saaxiibadiisa badbaado qaran uu ugu muujiyey in aysan colaysan isaga si uu maalmo kale uga helo taageero iyo jiib wanaagsan. Siyaasadda Deni ayaa saacad kasta isrogta. Waxa uu gacanta u fidiyaa siyaasiyiin kala duwan. Mucaaradka ayuu mar gacanta saaray, mar kalena marada ayuu ka fayday. Waa siyaasiga kaliya ee aan loo tilmaamin dhabaha uu socdo iyo dariiqa oo uu marayaba. Dad badan oo dhaliila muran ma gelayaan ku dhiciisa qofeed iyo sida jidka ugu xiraya fiilada uu ugu muuqdo. Taageerayaashiisu waxa ay ku tilmaamaan macallin falkinaya xisaab uu natiijadeeda sii og yahay, aan cidna talo weydiisan, balse sawirada iyo xafladaha uu qabta. Siyaabaha uu guusha uga xigsado ragga laacdanku kala dhaxeeyo ayaa loo aanaynayaa 3 qodob. 1. Siyaasaddu waa dan madba'an oo heer caalamiya ayuu aad u dhaqangeliyaa. Deni waa siyaasi ka xeeladaysta wixii aan dan u ahayn, ma aha nin maldaha wixii aan ku qumanayn. Xaalad kasta oo taagan dheefta uu qaadanayo ayuu eegaa. Mar waxa uu ahaa siyaasiga ugu dhow mucaaradka, mar kalena farmaajo ayuu la galay dagaal aan qarsoodi lahayn, kol kalena mucaaradka ayuu maradooda ku gubay. Hadal u dhignaa nin walba dantiisa ayuuna ku tiraabaa inta badan. 2. ku dhaqanka xayndaabka sharciga, si kasta oo uu mucaaradka ula socday, saaxiib ka dhigtay, madala la samaystay, haddana mar kasta waxa uu sheegayay in aysan ahayn cidda sharciga ah. Waxa uu ka aaminsanaa siyaasiyiin isku qoonda ah. Deni ayaana ahaa siyaasiga ugu hordiiday in shirarka masiirka ay ka qayb galaan xilligii midowga musharaxiintu ay dalbanayeen. Waxa uu mar walba ku dooday in cidda sharciyadda haysataa ay tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, wixii ka soo haraana ay yihiin shacab xukunka marti ka ah. Iyadoo oo sidaas oo kale uu si weyn u ciyaaray doorkii ahaa in Abriil 2021 doorashada laga fogeeyo gacmaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya. Hadalkii Baydhabo ee Deni ayaana si fiican u fayday arrimo badan oo ah in la kala adkaado iyadoo oo sharciga lagu dul shaqaynayo. Waa madba uusan gorgortan ka gelin Deni oo uu si weyn marar badan u dabaqo. 3. qoondada nidaamka saami qaybsiga Soomaalida ee 4.5. si kasta oo ay u kala siyaasad duwan yihiin siyaasiyiinta isaga ku dhariga ah ama uu la socdo kooxo kala duwan, haddana Siciid Deni waa siyaasi yaqaan halka ay abbaartu ka tahay, waxaana kasmadiisa ku jirta xisaabta reeraha. waxa uu dhowr jeer laga dareemay in kale aragti duwanaanta kala dhaxaysa dhinacyada kale aysan ka leexin inuu wato siyaasiyiin ku dhow garabka farmaajo, waana arrin wax weyn uga jaraysa dhanaarta doorashada. Ugu dambayn, siyaasigan leh han muuqdo oo siyaasad cad oo ku difaacda leh
ayay dad badan aaminsan yihiin inuu yahay haysashada maamul dhabar taagan aragtidiisa siyaasadeed iyo olog uu samaystayba ayaa ah faa'iido uu ku jiiri karo derbi kasta oo ka hor yimaada Siciid Deni haddii uu dhaqan siyaasadeedkiisa sii joogteeyo waxaa hubaala inuu halka sare kaga jiro tartanka loogu jiro tegidda Villa Soomaaliya iyada oo uu hadda ka mid yahay musharaxiinta ku dhawaaqday inay u taagan yihiin xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda